shirkadda Samtel Puntland ayaa degmada Carmo ka qabatay barnaamijka Abaal 2 kaas oo asbuuc kasta lagu shaaciyo macaamiisha ku guuleystay asbuucaas waxaana inta uu kulanku socday lagu dhawaaqay 100 macaamiil oo ku guuleystay hadiyado kala duwan kulanka waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Carmo taliyaha degmada Carmo gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga degmada Carmo ayaa si wadajir ah u bilaabay labada nasiib ee ugu horeeyay ee barnaamijka Abaal 2 barnaamijkan Abaal 2 barnaamijkan waa barnaamij weyn oo bulshada iyo company-gu ay capacity-ga bulshada iyo wada shaqaynta iyo macaamiisha iyo customer-ku ay ku dhexmaraya shirkaduna ay dib u celin ugu sameynayso customer-keeda in ay sharafto oo ma garanaysaa customer-keeda la wadaagto waxyaabihii ma garanaysaa isticmaalka inuu ku sameeyno aad iyo aad baan anigu waxaan ahay dadka aad u isticmaala shirkadda Samtel maxaa yeelay waa shirkad aad ma garanaysaa runtii dhinacyo badan haday tahay dhinaca maraysaa hadalka ama khadka ama maraysaa awoodda intaba ku sareysa way marka waxay kamid tahay kaararka ama shirkadaha ama khadka aan isticmaalo marka waan bogaadinaynaa waana mahadinaynaa waxaan leenahay magaalada Carmo oo magaalooyinka ugu fircoon Puntland kamid ah way istaayisha bulshadeeduna waa bulsho garanaysaa capacity ahaan iyo jawaab celin ahaan shirkadda inay customer u noqoto aad iyo aad ugu horeysa marka waxaan leenahay hambalyan leenahay soo dhawaada waa soo dhaweynaya waxa weeye shirkadda Samtel iyo abaalmarinta ay bixinayso iyo sida ay waxa weeye shacabkeeda iyo waxa weeye ummadeeda la shaqeynayso waxba hadal ku dheeraamayo waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa madaxda oo ay caawo u joogtay marti sharaf oo waqtigooda qiimaha badan siiyay si ay marxaanti uga noqdaan barnaamijka kan si kooban hadaan isu dul istaago barnaamijkan Abaal 2 waa barnaamij ay shirkadda Samtel ugu tala gashay asbuuc walba in ay ku guuleystaan 100 macaamiil oo macaamiisheeda kamid ah saddex goobood oo horaan ku soo qabanay sida Qardho Burtinle iyo Gaalkacyo عاونا وحنا نصيبه هالشيء مقالة قروح بدن عرمو وحنا ليه هو مهتسنتهين إن مرخاتي كان نقطان برنامج كان وحنا نقول تلاقى لي هبين أسبوع والباقين بقول مع ميلجوليستان هالكوديجي سوى ويا نينكو أوج باكو أبال جدا si aad idinku marxaati uga noqotaan waxay noo furi doona ama maaragtay inoo daadihin doona gudoomiyaha iyo taliyaha oo inoo bilaabi doona barnaamijka si ay si toos ah aad u aragtaan cid ku guuleysatay shirkaddu waxay ugu tala gashay inay macaamiisheeda abaal mariso waliba meel fagaare ah idinkuna marxaati ka noqotaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa marti sharafta na soo ajiibtay waqtigeeda qiimaha badan na siiyay inay caawa marxaati ka noqdaan ومهتسنتهين سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته